السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناسنا ما صاحبة قيمة بدنا يكون حنا جلاك سمنا كسو official فضلنا هدي تامر كورس سو بقى جلاك سبسكرايب نوصل كمبرال كنافرو سمر كستا يكون سو كلام مقالة حساب بدنا كنا صورينه فضلنا هدي هنون ولا جوكتنا مقالة كلاك نوصل sidoo kalena sii sheergareeya si uu muuqaal ku gaaro saaxiib badan waana ku mahadsantihiin barnaamijkeena maanta waxaan kusoo qaadanaa akhbaaraadka xiisa badan fanka koonfurta halkaas lagu laga sheegay filimka lagu magacaabo xidiga lagu magacaabo Fahrenheit oo markaa filim cusub ku dhawaaqay sidoo kale waxaan soo qaadanaa filimka Bola oo shaac laga qaaday xilliga la daawan doono iyo sidoo kale xidigta lagu magacaabo Ali Abad oo markaa shaac laga qaaday filimkeeda Hollywoodka xilliga rasmiga la daawan doono iyo sidoo kale waxaan soo qaadanaa aflaanta markaa ganacsiga sameynta lagu filimada kala walter firaya sidoo kale Fira Sim Haredi hadii aan ku hormar xidiga lagu magacaabo Fahrenheit oo maanta u dawaaldegay dhalashadiisa ayaa maanta lagu soo bandhigay filimkiisa 12aad xilliga rasmiga la daawan doono sidoo kale posterka ama kaartada filimkan laga soo bandhigay aad ayaa looga helay oo markaa Fahrenheit markaa filimka uu ku matalay Khamarji sidoo kale filimkan wuxuu ku matalay askari mayl adag oo markaa dhanka film loo diray howlgal markaa mission filimkan waa filim xisaab badan ninka lagu magacaabo xidiga lagu magacaabo Fahrenheit ku soo laabanayo tani filimkiisa markaa F3 oo markaa noqday film average oo markaa guuleystay sidoo kale waxa ka horeeyay filimkiisa markaa ahaa filimkii Gaani kaas oo soo baxay horaantii sanadkii 2020 filimkaas oo noqday film follow markaa ka burburay xidigan filimkaas waa sheekays aad wanaagsan sidoo kale jirahan xidigan is dhisay bas hadda waxa sheegay filimka inuu ka saameyn badan doono filimka hadda lagu magacaabo FT12 sidoo kale filimka maanta waxa loo sameeyay motion poster oo markaa filimka kaarta laga soo bandhigay iyo sidoo kale filimka waxa loo bixiyay magac markaa filimkan uu khaas ah iyadoo filimka markaa loo bixiyay magac lagu magacaabo Gandefadari Arjuna waana filim xisaab badan markaa la daawan doono sanadka 2023 oo rabo xidiga Fahrenheit markaa ku qabsada fanka Telugu waxaa la sheegay filimka action dhameystir inuu lahaan doono sidoo kale ficil ahlisan oo sameyn doono actorka lagu magacaabo Fahrenheit sidoo kale waxa directorka ninka lagu magacaabo Professor True oo markaa director caaqari markaa laga dambeeyay ninkaasi fanka Telugu haddana xidiga lagu jecel yahay Fahrenheit ayuu markaa filimkan classic oo sameynaya sidoo kale filimka qorshe wuxuu yahay 6 bilood dambe sanadkan 2023 in filimka la daawan doono sidoo kale filimka qorshihiisa hore ayuu bilaabatay filimkan sanadkii 2020 tagay filimka ayaa qorshihiisa la bilaabay sidoo kale filimkan waxa maalgelinaysa shirkadda lagu magacaabo Srifanka Tashwara Sein ayaa filimkan u maalgelinaysa xidigan Fahrenheit waxaa la filayaa filimkan inuu markaa ku qabsan doono fanka Telugu xidiga lagu magacaabo Fahrenheit oo markaa ka tirsan qoyska markaa loo yaqaan Megafile ama Kondela family waxaana ilmaadeeriya xidiga lagu magacaabo Ramcharan iyo sidoo kale Saidaram Teja waana qoyska ugu awood badan marka la joogo fanka Telugu ayuu ka mid yahay xidigan filimkan wuxuu rabaa markaa inuu ku soo caanbaxo xidigan sidoo kale filimkan wax shaac laga inuu markaa noqon doono filim baan India movie oo sida hadalaynta jirta filimkan sidoo kale filimkan wali akhbaaraad dhameystiran markaa kama soo bixin shirkadda filimka iskale sidoo kale teamka filimka iskale asxaabta filimkan waxay ka soo kordhanay xilliga rasmiga markaa filimka la daawan doono waxaanu ku soo gudbin doonaa muuqaaladan xiga sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxa soo qaadanayna filimka lagu magacaabo Bola oo markaa hogaamiyay xidiga markaa lagu magacaabo Ajay Devgan sidoo kale xidigta lagu magacaabo Tabu filimkan door adag ay qaadan doontaa filimkan waxa uu sanadkii 2020 tagay in markaa shaqadiisu socotay oo markaa shaqadiisu la waday ku dhawaad 6 bilood ayaa filimka shaqadiisu la waday sidoo kale filimka waxa directorka Ajay Devgan isla asagana hogaamiyay waxa uu horaan sanadka 2020 filimkii Runway oo markaa qaatay doorka hogaaminta sidoo kale doorka agaasinka haddana mar labaad ay ku soo laabtay sidoo kale bishii November aan soo dhaafnay sanadkii 2020 tagay filimkii ugu dambeeyay Dirshamtu wuxuu noqday blockbuster weyn sidoo kale ganacsahan wuxuu ka tallaabay ku dhawaad 300 karoor ilaa hadda tiyaatar uu saarayay ku dhawaad 2 bilood filimka tiyaatar saarayay inkastoo OTT-ga lagu soo fasaxay filimka wali tiyaatar uu saarayay waxa laga yaabaa markaa ka dawo inta uu filimka bataan uu ka soo baxayo sidoo kale filimkiisa Dirshamtu wali ganacsi yar ayuu ka sameeyay dhanka tiyaatarada soo wali markaa OTT-ga lagu soo fasaxay hadii aan soo noqono filimka Bola waxaana markaa ku soo laabanay labadii Dirsham markaa Tabu iyo sidoo kale Ajay Devgan ay labada film ku soo laabanay waana film xiiso badan oo markaa filimka waxa laga soo minguriyay filimkii markaa ahaa Kaithi markaa 2019 sameeyay xidiga la wada jecel yahay xidiga la wada jecel yahay markaa karti oo markaa la dhashay Suuriya ayaa filimka markaa laga soo minguriyay waxa loo bixiyay magaca Bola Ajay Devgan ayaa filimka soo gatay sidoo kale director garay sidoo kale xidigta lagu magacaabo Tabu waxay qaadan doontaa doorka askariga madalka oo markaa Kaithi karti markaa la shaqeynayay ayaa xidigta doorka askarinimada madalka filimka qaadan doontaa Ajay Devgan ayaa markaa filimka garab siin doontaa labada xidig Tabu sidoo kale Ajay Devgan filimada ay ka soo muuqdaan waxay noqdaan filmo classic oo markaa tiyaatarada wacdara ka dhigay sidoo kale filimkan waxa la filayaa 3 Maaj markii tiyaatarada la saaro filimkan wacdara lixaad inuu filimkan dhigo oo markaa tiyaatarada galo sidoo kale xidigta lagu magacaabo Rami Lakshmi ayaa filimka doorada ka qaadan doonta sidoo kale filimkan waxa laga yaabaa wax badan markaa laga bedelo maadaama filimkan noqon doono international movie oo markaa filimka laga daawan doono Hidio Idil waxa laga yaabaa filimkii markaa goboleedka Kaithi 2019 la daawaday
in markaa nooc kale markaa filimka loo dhigo ama qaab kale sheekadiisa markaa loo dhigo si markaa filimka sheekadiisa markaa u hesho daawadayaal fara badan ay markaa soo jiidato. Ajay Devgan waa uu yaqaan dhanka agaasinka markaa filimada classic uu sameeyay. Waxaa soo filimkii Runway 34 inuu markaa qaab cajiib markaa ugu dhaalatay sidoo kale uu agaasimay aadna loogu amaanay agaasinka filimka qaabka uu markaa u agaasimay. balse filimkaas wuxuu ka noqday filim falooba oo markaa duruufta xilliga jidhay markaa coronavirus ayaa filimkaas saameysay oo markaa filimkan wuxuu keenay lacag markaa aad u liita. waxaana masraxa isla saaraya filimkii markaa Hero Band 2 oo markaa 9 Abriil labada film isla soo baxeen. sidoo kale filimka waxaa kalsoon badan lagu qabaa Paula inuu markaa ku soo laabanayo xidiga lagu magacaabo Ajay Devgan maadaama filimkiisu ugu dambeeyay blockbuster weyn noqday taageerayaashana markaa aktarkan xiiso u qabaan. 4 bilood ka bacdina filimkiisa Paula ayaa masraxa loo saari doonaa 30 March. sidoo kale xidigan waxaa u diyaarsan filimadiisa kala Maydaan oo markaa la daawan doono dabiiqada sanadka 2023 iyo sidoo kale 2024 wuxuu bilaabi doonaa filimkiisa lagu magacaabo Golmaal 5 ama taxanaha Golmaal ayuu bilaabi doonaa. asxaabtaas ayaa ku cusub filimka lagu magacaabo Paula oo markaa hogaamiyay Ajay Devgan taabuna ay garab siinayso. sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxaan soo qaadanaa filimka lagu magacaabo Heart of Stone ay markaa muuqaal marti ama muuqaal kooban filimka ay ku leedahay xidigta lagu magacaabo Alia Bhatt. filimkan waa filimkii ugu horeeyay Hollywood-ka markaa ka soo muuqan doonta xidigta lagu magacaabo Alia Bhatt. xidigtan waxa uu filimkeeda ugu dambeeyay Brahmasta inuu noqdo superhit. sidoo kale waxa uu hayay filimkeeda kan Kubai Katwari oo salaantii sanadka bishii Maaj aan bishii February la daawaday kaasoo noqday superhit. xidigtan waqti fiican ayay ku jiraa haddana waxaa shaaca laga qaaday filimkeeda xigay markaa Hollywood-ka xilliga rasmiga la daawan doono waxaana shaaca laga qaaday 11 Agoosto in filimka la daawan doono. filimka waxaa iska leh shirkadda lagu magacaabo Netflix ayaa filimkan iska leh. sidoo kale filimkan waxaa xidigta lagu magacaabo Gal Gadot oo markaa ku caanbaxday Wonder Woman oo mataxanaha Wonder Woman oo film series-ka Wonder Woman ayaa filimka tirsha kuwadka. sidoo kale waxaa shaaca laga qaaday Alia Bhatt filimka door dhameystiran ku leedahay ama kaalinaad ka qaadan doonta filimka lagu magacaabo Heart of Stone. sidoo kale xidigta lagu magacaabo Gal Gadot filmo kala duwan ay u sameysay shirkadda lagu magacaabo Netflix waxaana ugu dambeeyay filimkeeda markaa Red Notice markaa la sameysay xidiga kala duwan Jose sidoo kale Ryan Reynolds kaasoo all time blockbuster ka dhanka Netflix sidoo kale daawayaal fara badan helay. haddana waxaa la filayaa filimka classic ay markaa ku soo jiidanayaan shacweynaha Hindiya. shirkadda Netflix waxay bilowday dhawaanaha in markaa dadka ka soo jeeda dhankaas koonfur Hindiya markaa way qof ka soo dalbadan waxaa soonaada filimkii ugu dambeeyay markaa ay soo saartay shirkadda lagu magacaabo Netflix ee ahaa markaas filimkii Hadi Greyman oo markaa Danush markaa door adag ka qaatay. haddana filimka oo kale Heart of Stone Alia Bhatt door adag ka qaadan doonta si markaa shirkadda Netflix ay markaa daawayaal fara badan uga helaan dhankaas Hindiya ay markaa qaad siyaasad ku aadan in markaa qof Hindiya kamid ah in filimka lagu soo daro. haddana sheekooyinka ay markaa shirkadda Netflix soo badinaysa si markaa ay u helaan macaamiil fara badan sidoo kale daawayaal fara badan oo qofka markaa taageero u ah si filimkaas uga daawado barta Netflix. sidoo kale filimka The Greyman Netflix laga daawado oo Danush ku jira filimkaas dhanka online ama OTT wuxuu ka noqday superhit oo markaas filimkaas si wali ah loogu daawado barta Netflix. haddana waxaa la filayaa filimka Heart of Stone ee markaa Alia Bhatt ku jira filimka markaa dhanka OTT wacdara ka dhigi doono. Alia Bhatt dhankaas Hindiya waxay ku leedahay shacbiyad aad u fara badan waxaa la filayaa filimka 11 Agoosto in markaa OTT-ga masraxa anilaha OTT-ga filimkan oo markaa wacdara ka dhigi doono waxa laga daawan doonaa barta Netflix. asxaabtaas ayaa ku cusub filimka markaa Heart of Stone aan ku soo qaadanayna Alia Bhatt in filimka qayb ka tahay. ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan haddana wax soo qaadanayna filimada tiyaatarada saaran kuwaas oo filimada lagu leeyahay Walter Firaaya sidoo kale Filasim Haradi. haddii aan ku hormaro filimka markaa lagu magacaabo Walter Firaaya oo markaa hogaamiyay yahay megastarka caanka Genevieve sidoo kale xidigta lagu magacaabo Shruti Hassan filimkaas kaalin ka qaadatay. sidoo kale filimka maalintii lixaad filimka wuxuu sameeyay ganacsi xadaaf maadaama filimka soo xareeyay 13 karoor iyadoo shalay arbacay filimka oo hay maalin markaa shaqo ay filimka wuxuu soo xareeyay ku dhawaad 14 karoor ilaa 13 karoor dhibic 8 karoor ay filimkan markaa soo xareeyay. isagoo filimka dhanka darbarasho filimka laga leeyahay uu ka soo xareeyay ku dhawaad 11 karoor gross money-ga filimkan wuxuu keenay 13 karoor. sidoo kale filimka waxa la fiirin doonaa worldwide gross filimka ganacsi ka sameeyay 6 maalmo markaa filimka masraxa saaran yahay wuxuu soo xareeyay 157 karoor ay filimka soo xareeyay waana ganacsi waliya maadaama filimka laga cabir qaato isagoo markaa 6 maalin oo kaliya filimka masraxa saaran. isagoo filimka qolyaha cajalada qaybiye ka helan ku dhawaad 91 karoor iyagoo markaa hore ku iibsaday ku dhawaad 89 karoor taasoo ka dhigantay 2 karoor markaa profit filimka ka heleen. sidoo kale filimka sidaas wuxuu ku noqday film hit dhameystiran. sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Filasim Haradi oo markaa hogaamiyay ka yahay Nadamuri Balakistan. sidoo kale filimkan xidigta lagu magacaabo Shruti Hassan
markaa tarsha kuwaad filimka ku matalayso sidoo kale duniya fiijina filimka doorka laadanimaad awood badan filimkan oonada amuru balakisna filimka isqaban doonaan sidoo kale filimka 7 maalin masraxa saariyay isagoo filimka 12 January tiyaatarada saaray sidoo kale xafis la fiirin doona ganacsiga filimkan ka sameeyay dhanka tiyaatarada isagoo filimka maalin 7 filimka uu keenay ku dhawaad lacag gaaraysa 5 karoor ilaa 6 karoor taasoo ka dhigantay filimkan inuu maalin 7 filimkan iscaliyay sidoo kale filimkan wadarta guud filimkan wuxuu maraya ku dhawaad 115 karoor ayuu filimka maraya iyadoo filimka qoliya cajalada qay filimkan ka helay ku dhawaad 68 karoor iyadoo markii hore filimka lagu iibsaday ku dhawaad 74 karoor sidoo kale filimka waxa ka dhiman markaas sidoo hit ku noqon lahaa ku dhawaad 6 karoor hoontaana maanta Khamiis sidoo kale bariyo Jimcaha filimkan wuxuu gaari doonaa darajada hit ama 74 kun filimkan uu soo xareyn doonaa ganacsigiisana filimka waxa uu baantay inuu markaa gaari doono 130 karoor ilaa 150 karoor asxaabta taasaya ka cusub labada filim ee kala fiira Simharadi sidoo kale Walter Firaya oo markaa ganacsi la xal ka sameeyay sidoo kale 7 maalin labada filim ku noqday filim hit dhameystirana sidoo kale shirkadda lagu magacaabo Maitri Movies Makersna filimka macaash fara badan labada filim wax ka helay macaash fara badan maadaama shirkadda Maitri Movies labada filim maalgelisay sidoo kale lacag waliya ka heleen isku darto labada filim markaa ku dhawaad 300 karoor in markaa ka faa'iido shirkaddan asxaabta labada filim xilliga sirmi oo tirtiga lagu soo fasax doonana waxaan ku soo gudbin doonaa muuqaaladan xiga fadlan haddii aad ka heshaan muuqaalka like noo saara waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.